ugu dambeysay wuxuu soo maray xilli dowladdu ay gacanta ku haysay xamarweyne waa beri iyo madiina qayb ka mid ah keliya ay gacanta ku haysay waddadan maka almukarama intii dhinacaas ka ah xilli ay gacanta ku haysay baa jirta inta kale waddanka soomaaliya inta kale puntland iyo somaliland marka laga reebo shabaab baa gacanta ku haya waxaan rabaa in la wada xasuusto waxaa laga yaabaa saaxiibo badan oo hadda baarlamaanka ku jira inayna xilligaa joogin ama madaxda sare qaranka ku jiraaba inayna xilligaa joogin weliba ay adkaan lahayd inay soomaaliya yimaadaan xilliga haddii la dhihi kaale ama xildhibaano ka noqdo ama madax ka noqdo airportka muqdisho aadan cadde marka dayuuraddu ka duulayso ama ku degeyso mortarisku ay ku dhici jireen hoobiyaashu ay ku dhici jireen dad badan oo arrintaa xoogaad u ahayaa jooga loo soo adkaystay oo loo dhabar adeegay maka almukarama jidkan maka almukarama aniga aadaan ugu farxaa markaan maraayo aan arkay dukaamada ka furan shoobinada ka furan hoteelada ka furan baabuurta oo cidhiidhiga oo traafiga oo meel laga mara lala-yahay because waxaan mari jirnay xilli aan waxba ka furayn aada ka baqanayso inaad jidka marto dukaan ma jiro makhaayad kama fura hodheel kama fura baabuuro ma maraayo xabad wiiftaa keliyaa ordi jirta oo labada dhinac isu dhaafaysa wejis waa loo soo adkaystay haddaan xilligaa loo soo adkaysanina maanta lama soo gaareen waxaa jirtay xilli wasiiradu ay shan u dhimanaayeen xildhibaanadu ay laba saddex u dhimanaayeen maalin walba hotel la geli jiray maalin walba maxaan ku idhahda xafiis la geli jiray madaxtooyada iyo 15 may iskuolka 15 may 15 may intuu isu jira waa la yaqaanaa 500 mitir xataa isuma gaadh isuma dhammaan umalaynaya 15 may markaa difaacu joogo waxaan rabaa inaan saaxiibada xasuusiyo waa sheegay xamarweyne iyo waa beri iyo madiina marka laga reebo dalka soomaaliya puntland iyo somaliland marka laga reebo inta kale shabaab baa haysta hal tuulo oo kaleo la joogay ma jiro waa loo soo adkaystay waxaana la gaadhsiiyey maanta waxaan rabaa xildhibaanada saaxiibada inaan weydiiyo shabaabka aan ka baqanayna xagu jooga yaa ii sheegi kara shabaab meesha uu jooga maanta tilmaami kara shabaab waxay joogaan gobolka jubbada dhexe oo si fuul ay u joogaan degmooyin ka mida jubbada hoose iyo degmooyin ka mida shabeellada hoose shabaabka aan ka caadaxaynayno shabaabka ku hayno dal buu la wareegay iyo magaaluu la wareegay iyo kanuu la wareegay xaguu jooga xagee yaa loo sheegi kara yaa maanta tilmaami kara gobolka banaadir iyo degmooyinka waa run amni xunaa jirta bastooladaa lala wareegayaa bambooyinaa lala wareegayaa waxaa lala wareegayaa maxaan ku idhaahdaa wax aan macno badan samaynayn laakiin ku filan qofka inay dhibaateeyaan laakiin golihii baarlamaanka faktiga aan ka hadallo xaqiiqda aan ka hadallo si amniga iyo siyaasadda labay kala yihiin haddii khayrka khariban yahay haddii farmaajo uu khariban yahay haddii golaha wasiiradu xun yihiin kulli innagaa keena innagaa ka sii xun ma shacabkaa soo doorto soo inaguma dooran yaa keenay raggaas yaa keenay innagaa keena innagaa kasii liidana boyntiga marka security-ga iyo amniga labaha amniga iyo siyaasadda labaha laga kala dhigo marka aan siyaasadda abbaarayno oo aan rabno inaan abbaarno nimanka odayaasha sideeda aan u doonano ayadoo geed ugu soo gabanay laakiin amniga iyo shacabka iyo dadka in la khalkhalgeliyo la yidhaahdo shabaab baana xukumiya shabaab baa xagga noo kaxeeya shabaab baa wadada ma hayna anaga wax shabaab yaa haya shabaab jubbada dhexe iyo degmooyin ka mida shabeellada hoose iyo jubbada hoose halka degmo kale ay koontarolaan ama ay joogaan ama tuulaha waa meesha
niman waddada istaagoo marna miino dhiga marna dadka xabad ku fura waa jira ayaguna qorshaheeday leeyihin iyo qaabkeeda waxaan rabaa markaa saaxiibayaalow yaynaan khalkhal gelinin amnigeenna iyo amniga dalkeenna waraa joojiya sheekada baarlamaankan markuu yimid waxaa lagu bilaabay gaadiidkaa lagu bilaabay xerada gaadiidka stadio conis u dhow baa lagu bilaabay waa lagu shiri kari waayo amni daraadi waxaan tagnay tali baalkii maxaanku idhaahdaa meeshii ahayd meeshan wasaaradda cadaaladda iyo gobolka waa lagu shiri kari waayo waa la tegi kari waayo waa ka soo tagnay halkaanaan soo gallay baakinkaanaan soo gallay because of shubkaan inuu naga celiyo hoobiyaha geshana qoryaa noo saarnaan jira markaan hadlaynaan xabadu waa dhici jireen hadday istaagaanna waxaan u malayn jirnay maxaan dhihi jirnay muxuu istaag maantana barxadda isbahaysiga banaankiisaan ku shiri karnaa shirka ku xiga dayniilaan ku qaban karnaa ka kalena waxaan ku qaban karnaa maxaan ku idhaahdaa kaxda iyo dhinaca kale gubadlayaan ku qaban karnaa yaa dhihi kara laguma qaban karo waa lagu qaban karaa marka saaxiibyaalow aniga waxaan rabaa inaan valuega amniga aan siday tahay u siino marka aan rabno inaan shaqo qabanona shaqadii kale iyo ciddii kale lala xisaabtamay sidee lagula xisaabtamo waa run weli dabac baa jira dawcuna ma dhammaan doona muddo dheer u baahan yahay dalkeena sababto a meesha laga keenayaa fog meesha laga keenayaa fog yaan lagu celini qodobka kale ee meesha ku jiraa waxay tahay arrintan amniga marka laga hadlaayo amnigu wuxuu u baahan yahay shaqo fara badan oo dadka soomaaliyeed inay wada qabtaan ay tahay haddaa xasuusataan amnigu siduu ku saxmi karo mar horaan tilmaamay halkaan ka tilmaamay aan ka sheegay amnigeenna iyo ciidankeenna iyo wuxuu u baahan yahay iyo sida lagu sixi karo maalinta xildhibaan ama dhaawac gaadho ama uu dhinto inaan toosno hurdada ka toosna ma aha inta aanay dhicinaa rabaa in hurdada laga tooso amni daradeenna hadda tii u dambeysay xildhibaanka waxa waaye mid qaraabo oo yimid iyo mid saaxiib oo yimid iyo mid ehel oo yimid baa mushkiladii o dhan ay kusoo ururtay waa progress fiican oo aynu u baahan nahay in mid qaraabo kula a laguu soo diro mooyaane mid kale inaanu ku arki karinba kuuna iman karin waxaan rabaa marka inaan xoogga saarno amnigeenna sida waddankeenna ku saxmi lahay waxaa kow ka ah oo amni darrada sabab u ah shaqo la-aan dhallinyaradii soomaaliyeed ayaa shaqo la-aana dhallinyarada soomaaliyeed shaqo waa abuurno qofka qaraxa iyo dhibaatada ka shaqeynaya shaqo uu mushaar ku qaadanayo hadduu helo qarax iyo dhibaato kama shaqeynayo shaqana waa buuxdaa waddankeena shaqadii dadka soomaaliyeed ay qaban lahaayeenna dad ajaaniba haya laga bilaabo biotoni ilaa iyo professional dad kalea ka shaqeeya oo aan soomaali ahayn qofka soomaaliga gobolkuu doono ha ka yimaado baasaboorkuu doono ha wato hadduu soomaaliya waa soomaali xaq bau leeya inuu ka shaqeeyo laakiin dadaan soomaali ahayn ilaahay baa idinku dhahaye maxaan ku idhaahdaa shaqaalihii oo unprofessionaalka ahaa aan waxba professional lahayn ayaa laga keenayaa dibadda oo shaqadii qabanaya oo iskaribaanayaalkii darawaliintii kuuligii kii dhisayey oo maxaan ku idhahdaa dhismaha sameynayay dadka soomaaliyeedna maanta aqoontooda meesha ay gaadho weligeed ma gaadhin wax aan laga helaynin ma jirto ayi professional aad u baahata caalamka oo aadan qof soomaaliya ka helaynin ma jirto marka ciidamo shisheeye iyo kambaniyaal ay waddan tegayaan shuruudda koowaad waxaa waaye shaqaalaha dadka deegaankaa la tegayaa waddankaa la tegayaa inuu ka faa'iido oy contractyada helaan oo maxaan ku idhahda u helaan waardiyaha waxaa laga keensaday maxaan ku idhahdaa dad afrikaan oo kale a laga keensaday waddamo kale laga keensaday maxaa diidaya marka wiilasha inay bamba tuuraan oo qarax inoogu dhejiyaan oo ay kharibaan iyaguna ay dhibaato sameeyaan sababtaa waa la xaniyo kulli ma baarlamaan bay noqon karaan dadka soomaaliyeed oo dhan iyo wasiirra may noqon karaan shaqo kale uma banaano dad kalea shaqadii hay
waxaan qabaa in aan dib ugu laabano waddankeenna opportunitieska yaalla inaan dhallinyaradeenna uga faa'iideyno oo mudana guddoomiye meeshaan ay ka soo baxda barnaamij shaqada dalka soomaaliya taalla in la soomaaliyeeyo oo dalka soomaaliyeed lagu wareejiyo iyo dadka soomaaliyeed waa buuxdaa shaqo ku filan haddaad tagtaan meelaha qaarkood waxaa waaye caloolxumaa u dhimanaysaa dadka dayuuraddu keenayso oo soomaaliya usoo shaqo tegaya subaxii markaa aragtaan galabtiina la rawxinayo oo dayuurad lagu rawxinayo subaxiina dayuurad baa lagu soo qaadaa galabtiina dayuurad baa lagu rawxiyaa dadkii soomaaliyeedna waa buuxa xaggee adaya waxaan u baahannahay marka inaan abbaarno inaan dhallinyaradeenna shaqo u abuurno qodobka aan rabo inaan isdul taago waxay tahay mudane guddoomiye run ahaantii way jiraan caqabaduhuna waxay u baahan yihiin siyaabo kala duwan in loo xalliyo aniga ma diidani security xumo inay jirto laakiin security xumadu meesha shalay joogtay maanta ma joogto mana u dhowa waxyaabaha qaarkood oo saaxiibada ay ka hadlaayeenna waxaan soo jeedin lahaa waxaa ku habboon meelo kale lagaga hadlo oo waxyaabaha qaarkood waxay u baahan yihiin in maaragtay aan halka la keenin taas waxaan uga jeedaa waxa niyad jabka keenaya macno badanna aan samayneyn inaan ka dayno halkaan aan ka dayno mudane guddoomiye arrinta muhiimka ah oo kale waxay tahay arrinta dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ah waa muhiim golihii baarlamaanka halka fadhiya wakiiladii shacabka ah dabcan xildhibaanada halkan jooga ayaantii dhaweeda doorashada la soo gelayay xildhibaano gruub waliba meel bay ka yimaadeen dowlad goboleed bay ka yimaadeen haddii wax khaldan yihiin waxaa khaldan waxaa la rabaa in lagala tashado hay-adaha ay khusayso dadka ay khusayso loo sheego baarlamaanka tiimka xamar joogaana ma wargelinin ee heer federaal oo ma odhanin problemkana taagana kaale nala arka kuwii dowlad goboleedyada laga yimidna ma odhanin problemkana na haysta kaale nala arka taa waxay marka muujinaysaa in ay jiraan waxyaabo kale oo aynaan laga yaabo inay naga dahsoon yihiin waxaan soo jeedin lahaa soo jeedin lahaa madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka madaxdoodaba annaga inay shaqeeyaan waan rabnaa oo shaqo qabtaan dowlad goboleedyada waa loo baahan yahay federaal systemka waa loo baahan yahay laakiin waxaa la rabaa federaalku inuu noqdo system u adeegaya dalka soomaaliyeed u adeegaya in mid lagu kala fogeynayo inuu noqdo ma aha qodobka ah gacan saddexaad fasiraadeeda waa badnaan kartaa laakiin waxaan u qaadanayna inay uga jeedaan baarlamaanka iyo aqalka sare odayaasha taasaan u qaadanaynaa gacanta saddexaad inay uga jeedaan aqalka sare iyo baarlamaanka inay taa uga jeedaan aan u qaadanaynaa uma qaadanayna inay sidii dhici jirtay dad shisheeya ay u gacanta haadinayaan taana waxaan rabnaa in aan lasii kala fogeynin ee laysku soo dhoweeyo waxaan kusoo gebagabaynayaa mudane guddoomiye doodan waa fiican tahay laakiin yaynaan aadinin meel ayna lahayn kuna soo celino dalkaana shabaab ma joogo shabaabka joogaana waa shabaab dhuudhuumanaya gobolkaa jubbada dhexe iyo dhowr degmo oo jubbada hoose iyo shabeellada hoose ku haray wax kale oo mushkilad oo taagani ma jirta waxa kale waa dhammaystirkana aan ka wada shaqayno sida aan uga shaqayn karnaana waa dhallinyaradeenna inaan shaqada ku wareejino oo dadka shaqo la-aantaa aynu shaqo u abuurno dhallinyarada soomaaliyeed aynu ku wareejino shaqooyinka yaalla aad ba umahadsantihi